kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com وهاجاج baraha bulshada ayaa waxa ay markaasi u noqdeen goob ay dadku ku soo bandhigaan xirfadahooda kala duwan sida sheekooyin gaagaaban riwaayado qosol leh iyo qisooyinka ku dhaca dadka dhanka kalena dadka qaarkood ayaa waxa ay aaminsan yihiin in baraha bulshada lagu soo bandhigo waxyaabo aan wanaagsanayn balse Naciimo Khaliif Ismaaciil ayaa bilihii u dambeeyay waxa ay soo jiidatay indhaha qaar kamid ah dadka adeegsada baraha bulshada waxaana ay ku soo bandhigtaa sheekooyin taabanaya wacyiga bulshada ka dhex jira Naciimo Khaliif Ismaaciil oo loo yaqaan Naciimo ayaa iyadoo ku sugan gobolka California wadanka Mareykanka waxay u warantay wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas waxa ugu muhiimsan waxay tahay qoyska ka ugu yar oo 2 jirka ilaa 6 jirka waxay isku wada fahmi karaan oo maaweelo u noqon kara iyo farxad inaan sameeyo oo dadka Soomaaliga soo celin kara xataa caruuraha qurbaha ku dhashay ay fahmi karaan oo ku qosbi karaan ay ku siin karaan macnaha tixgelin gaar ah si ay Soomaaliga ugu soo laabtaan bal waxa ii sheegtaa in sheekooyinkan marka aad samaynayso ma waxa aad ka fikirtaa inta aadan iska duubin ka hor waxa marka samaynay waxa weeye Soomaaliga umba aniga isticmaala aan ku hadlo laakiin waxa isku dayaa in aan ma aragtay waxa arkay aan sameeyo qiso aan ogaa markay dhacaysay ama aan maqlay dabcan sheekooyinka gagaaban ee aad samaysay waa ay tiro badan yihiin bal mid kamid ah hadii aan soo qabto waxaad u bixisay rufiyaannimada aniga horta naftad ahaantayda ayaan ka soo qaaday markuu qof isoo waco oo wax ii sheego waa isbedelaa qalbigayga markii uu qofkaas wax ii sheegay inuu asxaan ii sameeyo ma arko marka waxaan ka sameeyay qofka hadalka soo sheegaya inuu yahay dhibaatada qofka wada oo labada qof u kala dabqaadaya markaas ayaan waxaan sameeyay sidii lagu xakameyn lahaa qofkaas oo ah sida uu qofkaas u dhibay in asagana wax kale loo sheego loogu jawaabo si uu u joojiyo inuu wax soo sheego dadka hana la wada dhageystaan sheekadaas tiba isoo waxaysan ka bilaabay halo ma ii waran maxaa haysaa waa fiicanahay waxaan ku hayaa naagtiba maanta isoo wacda yaa daadii ku caayis أنا تيكلا إسوا عضي تيادي كعايز تيادي وحي تريشة وحي تريده وقرقة جدا بهايجين نرشة يده عن شر لما عرقاني وقرقة النيعبة يقول ريسي تري وحن عافي ما دين والله كلا قادة وما صعدي تري وحن اللي يرمرضي مقالة وقعة السرمينكي لفتي يرايك تبعونها كجدكين تود الداك بانكو يرباستي بريس نوعا وباطات كدل بانيسا دوشيبا badanaa sheekooyinkaaga magacyada aad u isticmaasho waa kuwo qosol badan waxaa ka mid ah surmindi niic qaloocow shaafto maxaad ku dooratay magacyadaasi magacyadaas waxa u doortay riwaayadaas markaas aan samaynayo si uusan qof intuu daawado aysan magaciisi uusan macnaha qofkaas ama inkastoo Soomaalidu bariyahan dama u badato xagga eeda aan la iidin magacaygaad ku soo dartay marka anoo dadkii oo dhan qalbigooda nadiif noqdo rabo ayaan waxaan isticmaalaa magacyo aniga aan sameeyo oo ii gaara ma culays baan kugu ahay bal sheekadaas iiga waran waa sheeko idin dhaxmaraysa adiga iyo odaygaaga sida aad ku matalayso sheekadaas waxay ku saabsan tahay qurbaha sida waagii hore wadanka markii la joogay gabdhaha caruurta haysta caruurta bacaadkay ku dheeli jireen kadhim wadankan sidii maaha guri baa lagu wada xiran yahay marka gabadhii waxa dhici karta inay ninkii wacdo 20 jeer halkii saac iyadoo is ogeyn oo wax ay hal telefoon ugu diri karto 10 jeer ay kala wacdo iyadoo ka raadinaysa halkaas sheeko ama hadal la sheekaysan haddii aan runta ku sheego horta sheekadaas 10 jeer aan ku cishta aad iyo aad ayaan u qoslay balse waxaan doonayaa qosolka kaliya inaan aniga adiga isku koobno ma dadka kale inay la dhageystaan halo wariyaa gabadha yarta aanigi waa ka dhamaadeen hore u soo qaad markay imaanayso halo wariyaa wiilka yar oo saan cadda dheebarkii baa ka dhamaaday u soo qaad xagee u degdegaysa sida u degdegaysa customer baa wada maxaa iga galay dee naanala hadash soo qaad ها اسبس وقع والله يقدر يسكبوا من دمنا ناقة كانت كلها اللي سمعت ترى ما انت تعترك كان دعيها شو كانسي
وعجيب tan iyo markaad bilowday samaynta sheekooyinkan baraha bulshada aad ayaa looga jeclaystay oo dad badan ayaa ku daawado maxaa kuugu yaab badnaa waad la kulantay Naciimo waxaa iigu yaabka badnaa anoo magaalada maraayo markaan arkay gabar daawanaysa fiidiyoyadayda kadibna ay iga codsatay inaan la daawado gabadhan kadibna waan qoslay wax yar attention siiyo waana ka sii dhaqaaqay Naciimo bal waxaad ii matashaa sheekadan ee aad iska duubtay oo waliba adiga oo gabadha kale ay ku leedahay reebaadiye ayaad baahayde maalinta jacaylka maxaad ka taqaanaa naahada sootaan baadiyaha ariga isku la raaci jirnay gormaad tiri Valentine naahada Valentine ka sheegaysto waa dhintay jacaylka annaga ka dhaxalnay waxaad kaloo ku sii dartaa meeshii ahayd oo adiga gabadha isku jawaabayseen mar horaan ku bixiye irka ii jira cabaar waa yahay